wadankan xaaladda uu hadda ku jiro inta aynaan gelin waxaan u baahanahay waxoogo inaan dib u yar laabano oo xaaladda wadanka waxa ay soo ahaan jirtay in yar anoo waqti badan idinka qaadanayn inaan dib ugu yar noqono sida inta hadda taariikhahan cusubi ee dambe ay tilmaamayaan wadanka mar waxaa ka jiray nidaamyo boqortooyo ah ka jiray nidaamyada boqortooyada ahaayo dalka iyo dadkaba inay iyaguna ka sareeyaan iyaguna ay leeyihiin dadka iyo dalkaba u arkayay oo dadka iyo dalku ay riciyaba iyaga u ahaayeen tii kacdoomaa ka dhashay oo dhalinyartii ardada jaamacadaha ayaa ka hortegay su-aasha ugu badan ee xilligaa taagnaydna waxay ahayd in dadka dhulka iskale ee beeralayda ah ay iyagu xaq u yeeshaan dhulkooda inay beertaan nasiib wanaag tii waa lagu guulaystay markii lagu guulaystay oo su-aashii dhulka ku saabsanayd laga jawaabay kadib wadankii waxaa la wareegay nidaam dictatori ah oo military baa wadankii la wareegay nidaamka dictatoriga ee militariga inkastoo su-aashii ku saabsanayd dhulka laga jawaabay oo iyaga laftooda ay qayb ka ahaayeen dadkii ka jawaabay haddana waxayna iyagu ka jawaabin xaqii dadku ay u lahaayeen inay iyagu ismaamulaan iyo xuquuqdii dadku ay u lahaayeen nidaam dimuqraadi ah inay ku noolaadaan ayaan laga jawaabin mid walba xaq buu u leeyahay sida uu dastuurku qorayo inuu talada wadanka ka qayb galo waxaa la sameeyey ururkan b oo ah urur ay ku wada jiraan dhammaan qowmiyadaha kala gedsan ee Ethiopia ku wada jiraan marka laga reebo TPLF marka maxay ku diiday waxa ay ku diiday danihii ay markii hore ku qabtay EPRDF iyadoo hoggaanka ay u haysay ayaan meesha ku jira dagaalaha socda oo ka socda dhinaca waqooyiga ka socda laakiin marnaba suuragal ma aha TPLF in intay soo laabato ay wadankii qabsato sidii shalay u maamuli jirtay u maamusho marnaba suuragal ma aha waayahay baldanka kale mowqifka xisbiga barwaaqo muxuu yahay mowqifka xisbiga barwaaqada waa cad yahay xisbiga barwaaqo waa kan hogaaminaya dowladda maanta ka jirta Ethiopia ka jirta kan hogaaminaya way marka mowqifkaasi waxaa weeye wadankan in la gaadhsiiyo horumar dhan walba leh horumar dhinaca siyaasadeed horumar dhinaca dhaqaale ah horumar dhinaca bulshada in la gaadhsiiyo way dhinaca siyaasadda horumarka la gaadhsiinayo waxaa kow ka ah qof walba muwaadin oo Ethiopiana inuu xaq u leeyahay ayag tashigiisa inuu xaq u leeyahay inuu xaq u leeyahay inuu naftiisana maamulo degmadiisa iyo deegaanka uu ka soo jeedana uu maamulo dawladda guud ama Ethiopiada guudna qaybta uu ku leeyahay inuu ka helo oo maamulkeeda uu codkiisa uu ka dhiibto weeyaan cid kasta oo taa ku noqota caqabad ku noqota oo ka hortimaadana hadba sida ugu haboon ee uu sharcigu ogol yahay in lagu la dhaqmo way marka xisbiga barwaaqo waa in nimanka TPLF ee falaaga go'aankiisu waxa weeyaan falaagada in la soo afjaro iyadoo shacabka Tigreegu ay yihiin shacab walaalaheena shacab muwaadiniina oo dib loo geysanaynin weeyaan waayahay geesta kale sidee baad u aragtaa dadka iyagu hadda u hanqaltaagaya TPLF qolyahan gacan haadinaya ama taageerada u muujinaya TPLF ee Soomaalida dadka qaar baa laga yaabaa inay aaminsan yihiin TPLF inay dhibaatooyin la kulantay qaabkii uu maamuleysay inuu khaldan yahay hadda inay waaye arag ku noqotay marka hadii ay soo laabato sidii hadda kor wuxuu maamuleysay inaan u maamuleyn dimuqraadiyadda inay ogolaanayso deegaan walba inuu isagu ismaamulo inay ogolaan dad nooca u hadlaya laga yaabaa inaad ay jiraan oo Soomaaliya taa waxaan leeyahay TPLF waqti ku filan in ay khibrad hesho wadanka way maamuleysay 27 sano bay hogaaminta siyaasadeed ee wadanka Ethiopia gacanta ku haysay 27 ka sano dhibaatooyinka ay sameeynaysa waa laga hadlay lagama aamusnayn waxaan dastuurka ma waafaqsan xorriyadda dimuqraadiyadeed iyo xuquuqda dimuqraadiyadeed shacabku u lahaa ma hayno waxaana ka khaldan baa lagu lahaa tii bini aadamka laftiisa xuquuqda bini aadamnimo ee dastuurku uu xeerinayay baan haynin baa la lahaa tii federalism ee uu xeerinayay dastuurku ayaan la haynin oo aad ogeydeen oo deegaamada qaarkood inay lahaayeen tira ahaanna waanu fara badannahay qoomiyad dhaqan iyo diin iyo dhul u gaar ah lana waanahay loo diidanaa sida sidaamada kaleeto marka intaas oo dhan waa loo sheegay way diidanayeen markasta oo xaq loo sheego ama runta loo sheego cadaadis iyo caburin bay sii gelinayeen nimankii noocaas ahaa ayaa maanta ay wadanka taladiisii laga faramaroojiyay oo ay ka baxeen oo ay haddana dib ugu soo jabhadeeyeen ya haday wadanka qabsadaan bay dhaqankii hore bedelayaan oo dimuqraadiyad bay keenayaan waa fikir aan suuragal ahayn aqli saliimana uusan keeni karin
taasi waxay la mid tahay ustaadka weynaa ina cabdilla xasan ahaa gobayadiisii faraha badnaa mid ka mida oo uu dhihi jiray tukashada fircoon baa asixi waato aan jirin yani nimankaas intay soo laabtaan bay dhaqankoodii hore dhaqan ka bedelan keenayaan suuragal ma ah. waqti ku filan way soo mareen, marka niman dhaqankii kasii xumaan oo dadka dhib kale usii geysan inay noqdaan mooyaane marnaba ma kama tanaazulayaan. waxaan waa dabeecad ay asal u leeyihiin bay ahayd. shacabkayga waxaan u sheegi lahaa marnaba inayna suuragalhan inay soo laabato oo wadankii qabsato, inay shalay say wax maamulaysa ay u maamusho. waayo qoomiyadu walbahay waxa ay og tahay shalay intay TPLF wadanka hogaaminaysay wixii ay xaq u lahayd ay haysatay iyo waxa ka maqnaabay og tahay, si ficilay wax walba u soo aragtay. marka maanta waxay rabtaa wixii hagaagsanaana inay sii haysato, wixii ka dhimanaana in ay heshay doonaysaa. innaga deegaanka Soomaalida ah iyo haddaynu Soomaali nahayna waa sidoo kale. war wixii shalay aan haysanaynahay noo wanaagsanaana aynu qabsanno, wixii inaga dhimanaana aynu dhammaystirano. hana jirto qofka Soomaaliga ee deegaanka u dhashay ha noqdo qof leh qiyam ama mabaadi aas-aasi ah oo uusan gorgortan ka gelaynin, oo noloshiisa isbedelaa maraya, dhibaatooyin baa imanaya, wanaagyaal baa imanaya. marka mar walba waa inay jirto waxyaaba halbeega oo uu ku cabiro isaga mabaadi aas-aasi oo uusan marnaba ka tanaazulaynin, oo waxyaabaha soo maraya inta uu barbar dhigo. hadday mabaadidiisa waafaqdana waa inuu qaato soo jiito, hadday mabaadidiisa waafaqi weydana iyo qiyamkiisa ay waafaqi weydana dee waa inuu tuuro.